degmada Dhoqosho waxay dhinaca hawdka kaga beegan tahay magaalada Burco waxaana ka tirsan tahay gobolkan Togdheer. Degmadani ayaa ah degmad taariikhi ah isla markaasina waxaa ka howlgala laamaha kala duwan ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lagu xasuustaa degmadani Dhoqosho sanadii 2004 waxay ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Dhoqosho ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dadkii argagixisada ah ee doonayay inay Soomaaliland ka geystaan falal amni darro. haddaba gudoomiyaha degmada Dhoqosho Maxamuud Xasan Salebaan aanu la kulanay ayaa nooga warbixiyay xaaladda guud ee degmada sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu baaq u diray wasaaradda xanaanada xoolaha oo uu sheegay inuu dhismaheedu ka dhisan yahay degmadani balse aanay shaqaynaynin iyadoo ay xooluhu yihiin lafdhabarta dhaqaale ee guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii deegaanka maanta waa xilli abaaraha ku jira roobabkii baa la sugayaa deerta إن شاء الله إلهي بالغرتين يا إنه رافع عن دو حلوة تذكر كتير سنين بيونا مقالوين كبدو ويرين لكن إلهي بالغرتين يا إنه عبارة سوتشي حاجة عافمات كتذكر في عياي وعذرها أو كتير مثل عندي يعني قفت حنون سكي رباني سكاسي ومويانا وح في السنة وتلا مترو لنع وحبر الشرا dugsiyada hoose dhexe way furan oo shaqeynayaan hal dugsiyo secondary bay leedahay degmadu iskuulka secondary-gana isaguna uu shaqeynayaa oo uu furan yahay maxay tahay dhinacyada maxay tahay horumarka bulshada hadday tahay xanaanada xoolaha iyo haddii badankeeda biyaha adeegyadaasi way yar gaabis oo si runtii degmadu riyagna male dhaadheer oo laga cabo male ceelal yar shalay waliso iyaga laga cabo baraago xanaanada xooluhuna way dhisan tahay laakiin ma shaqeyso oo wax shaqo oo ay leedahay ay qabataan ma jirto insha Allah waxaan ka codsanayaa wasaaraddu inay keeni doonto adeegyadii looga baahnaa ee xoolaha maadaama ay xooluhu yihiin lafdhabarta ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqaaqayso xagga maamulka degmada وفي عين ميل عم مريا نبت جليدو أو شيء كوبادي وحوي وعيهاي سليق بوليسكو عيدا ككاول قلا ترير هذا لكن سووا شغينا وحكاول قلا لما تلوين كانوا حيران يقار أنا قلنا هو سما دي غار أنا وصلنا إلا دوري تمنتلو أي بليس كان مقالدو كاول كلام تريد دويرتي لكن تريد ما في عنده والشغينا وان الددالية إن شاء الله وددوينو إسقى إسناد بليسة ونبت جديدة غفل بتاع السكان عشان يا هدي دبعت العدنا الأمان ددوينها دجام هيجنا يجي كلام وحنا يسوتها كان سيدي نبت جديدة كعنت لو قبل لها الواحد كمان لها هذه بنقول هذا علنا يا دجام كمان يددوينها رئيس ولا عندما تقول لنك دولة دوسة صار نتي ما تعرفيس كان كوينو maxay toy shirkad jarayd xarunta dawladda hoose oo ah guri yar oo kooban hadda laakiin insha Allah waan dhisi doonaa guri ballaaran oo xarunta maamulku dhammaan ay ka wada hawl gasho insha Allah waan imaka dhagax dhigi doonaa dhisina doonaa insha Allah israacin doonaa gaaladan ka dhigo insha Allah xagga maxay toy hab socodka nidaam ee maamul xagga sirfayga iyo tombalanka iyo magaaleynta dalka iyadoo aanan ka helin wax yani wacyigelin aan meel kale naga soo gaarin haddana anaga isku tashanay annagoo kaashanayna dawladda hoose degmada Burco oo iyaduna naga caawisay xagga imkaaniyaadka iyo joomitirada waxaanu sameynay sarfayga iyo tombalanka degmada oo dhammaystiran runtii waxaan hadda dhamaaday oo sarfaygu ka baxsan yahay 26 wato oo magaalada koonayaasheeda iyo hareeraheeda dhexdeeda ku faafa dugsi hoose dhexe sare kaasi oo ay wax ka bartaan in ka badan 200 oo arday intii aan ku dhex jirnay socdaalkaygana aan ku gaarnay degmada Dhoqosho ayaa waxaanu la kulanay gudoomiyaha waxbarashada degmada Salebaan Abukar oo nooga warbixiyay xaaladda waxbarasho ee degmada waxaana hadaladiisii kamid ahaa marxaladda dugsiga hoose dhexe waxa dhigta 276 arday oo isugu jira 128 runtii macallimiinta ka hawlgashan waa 10 macallin waxbarashada soo waxay socotaa si toos ah aad iyo aadna waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada
heer qaran ama ta gobolka oo aad uga qabatay dhismayaasha dugsigan iyo manhajkiisa iyo gurnaynta macallimiintiisa inta waxaan noo raacdaa qolyaha dibadda iyo diasparaha iyaga laftooda aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waxay qayb weyn ka qaateen socodsiinta dugsiga sare secondary-ga muddo 2 sano maantana waxaan leenahay heello uma qodna ciidan loo maqnaa wixii ilaahay idinku soo dhiibo aa heli kartaan kaga soo qayb gala waxaan ku ballan qaadaynaa inaan dib u dhicin marnaba waxbarashada dugsiga sare ee qorshay ka hoose ka dhexe dhammaan runtii oo iska deemiyo waxaa jira iska hore xilliyo adag maanta dadku ku jira xilliyo adag roob la'aan iyadoo 2 sano aan roob helin haddana raxmadda ilaahay baa la iska rajaynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qolada dibadda oo hormuudka Cabdicasiis Xasan Jiiqo iyo groupkii la shaqeynayay iyo dadkii ay wax ka ururiyeen ugu soo tababaray dugsigan inay wax ka bixiyaan socodsiinta dugsiga sare ee Doqoshay. dhinaca kale taliyaha qaybta booliiska degmada Doqoshay oo aan isku booqanay xafiiskiisa ayaan wax ka weydiinay xaaladda ammaan ee degmada waxaanu taliyuhu noo sheegay inay guud ahaanba xaaladda ammaan ee degmadu tahay mid degan sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu intaasi ku daray inay wadaan hawlgallo ay kaga ururinayaan dadka reer miyiga ahi budharka iyo toorida. Doqoshay aad iyo aad u fiican tahay ammaankeeduna wuu wacan yahay dhammaanna waxay la qabtaa jamhuuriyadda Somaliland ayay la qabtaa bilkhusuusan halkan waa meel lagu qabtay nimankii badhcadda ahaa ee kusoo duulay 2004 halkii lagu qabtay weeye waxaanay runtii aad iyo aad uga qayb qaadataa ammaanka guud ee Somaliland kiisaska ugu badan runtii saldhigga dadku shacabku iska wada hubeysan yahay nin walba xistaa qorigiisii nin walba xistaa toorigiisii yaa ugu badan aan ka shaqeyno inaan ka ururno dadka reer miyiga inaan ka ururno hubka iyo waxyaalaha ay khatar naftooda ku gelinayaan barashadka ugu badan waxaan saaraa inaan ka ururno dadka tooriyaha iyo budharka si ay u ogaadaan inay ammaan tahay oo bilaysku uu mas'uul ka yahay qof walibana soo ashtakooda oo yimaado saldhigga waxaanay ku taalaa runtii qaryad aad iyo aad u ballaaran ilaa 9 tuulo ayaan hoos yimaada kiisaskuna way iska badan yihiin qaar jiro badan baanu ka dhaadhicinay dad caruura tuurado badan baa jiro fisuq waxay wadaa runtii inuu iska soo badanayo waxaanu laakiin habeenay maalin u heeganahay inaan degmaduna horumarto ammaanka guud ee Somaliland aan ka qayb qaadano insha Allah tacaala waana ku guuleysanay in badan oo kamid ah kii wax dilay iyo kii wax dhacay iyo kii wax kufsaday oo inta badan waxaan horgeynaa hay'adaha sharciga boqolkiiba 90 tobanka kalena waxaa dhameeyo odayaal qabiileedka ama odayaasha qabaa'ilka ayaa dhameeya inta kalena waxaan horgeynaa maxkamadaha sharciga baan horgeynaa oo waxaan u dhaadhicinaa burco ama taliska qaybta ayaan u dhaadhicinaa wixii aan u dhammayn karana waan u dhammaynaa kiisaska fudud waxaana ugu badan oo runtii iminka aad noogu badan bahal jaad la yidhaahdo oo dadku ay dayn iyo wax iskaga yeeshaan isku dilayaan ay isku qabsadaan intuu qofku cuno hadhow qofkii kalena ku qabsanayo kiisaska ugu badan ee runtii nagu soo noqnoqdaana kuwaasi u badan yihiin xaaladda guud ammaankuna waa wacan yahay saldhigguna uu si aad iyo aad u tago oo wacan buu shaqaynayaa inkastoo askarta joogta aan badnayn haddana waa in runtii aad u firfircoon oo ku filan insha Allah qaar badan oo kalena waan rajaynaynaa intii degmadu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Ahmed Maxamuud Siiraani oo qabsadayna wax badan baa iska bedelay xagga degmada horumarka gaadiidka oo dawladda hoose runtii aad iyo aad aan isu kaashano aad iyo aad aan xagga dawladda hoose iyo maayirka isu kaashano oo aanu xagga ammaanka iyo xagga horumarinta degmada sekretariyada waxbarashada haddaan waxbarasho la helin oo dadku jaahil wada noqdo dee runtii dugdhac baa ku imanaya degmada marka hadda waxaan u feedana ammaankii meel baan ku tiirinay inaanu waxbarashada iyo horumarinta degmada
aan aad iyo aad u dadaalo. Degmadani Doqoshay ayaa waxay ku caan tahay fardaha iyo ceelasha oo Aisha biyaha ay ka helaan dadweynaha ku dhaqan degmadaasi, kuwaasi oo dad iyo xoolaba ka caba ceelashaasi oo ku yaala duleedka magaalada Doqoshay. Isku soo wada duubka degmadani Doqoshay ayaa waxa hoos yimaada in ka badan 8 tuulo oo kamid ah gobolkan Togdheer, waxaana degmadani ka dhisan tahay dhinacyada baahiyaha asaasiga ah oo ay ugu horeeyaan waxbarashada, caafimaadka, biyaha. iyadoo lagu jiro xilli roobaad ayaa waxa deegaankani Doqoshay iyo deegaanka ku xeeranba laga dareemayaa curashada roobabka dayrta daba jooga uga daaya deegaanadaasi. waa Maxamed Xuseen Mataan, wararka shabakada caalamiga ee Burco Online.